بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالسلام الله عليكم ورحمة وبركاته waxaynu ku jirnay siradii nabiga calayhi salaatu wasalaam qabla nubuwa waxaynu soo gaadhnay isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday awowgii cabdilmuطalib oo markaasi uu kafaalo qaaday adeerkii abi aalib culamaai taariikh waxay wariyaan abi aalib inuu aada u jeclaa xataa socdaalladiisa iyo majaalistiisa iyo meelaha u fadhiisanayo inuu kaxaysan jiray waxaa la sheegaa inuu safar la galay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo yar oo 12 jir meelahaasi oo kale ah safarkaasi oo abi aalib shaam uu ku socday oo tijaaro ah laakiin wiil yarow sii kaxaystay buu markaasi ahaa oo 10 jir 12 jir meelahaasi oo kale ah imaamu tirmidhi sidoo xadiidka ku soo warinayo waxa uu tilmaamayaa safarka markii uu ku jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam oo la socda adeerkii abi aalib iyo koox kaloo carbeed inay ku soo baxeen nin raahiba oo raahibkaasi oo baxiira la odhan jiray raahibkan iyo magaciisa waa yani tadaarub iska tiro badan baa ku jira jarjis waa la odhan jiray bay yidhaahdaan sergis way ku sheegaan cidduu ahaa way isku khilaafaan waxyaabo badan laakiin markaynu eegna xadiidkaasi tirmidiya inta ugu badan lemala sanadkiisu ugu roon yahay ninkaasi raahibkaa bay u yimaadeen raahibka markii ay la soo degeenna wuxuu gartay astaamihii nebiga calayhi salaatu wasalaam dadku ka dhex baadhbaadhay dabeetana wuu helay wuxuu ku yidhi ninkani waa sayid alcaalamiin waa rasuul ilaahay buu noqon doonaayo kale maxaad ku garatay su-aala bay weydiiyeen dabeetana arrimuu sheegay arrimuhuu sheegay waxaa ka mid ahaa dhacdooyin baan arkay buu leeyay nebi mooyaane cid kale ka suurtalgaal ahayn wuxuu kaloo sheegay inuu khaatamu nubuwa garabkiisa laga eego nabiga calayhi salaatu wasalaam shaabad nebinimo ahba xaggan dhabarka kaga taalay garabkiisa oo timo qayb madow bar madow halkan ku taalla ah oo rasuulnimadiisa sheegaysay taana ka baadha buu yidhi waa laga helay dabeetana si fiican buu usoo dhoweeyey waxaanu abi aalib u sheego uu ku yidhi markaasi wiilkan mar dambe shaam ha usoo kaxaynin waxaan uga baqayaa romanska iyo yahuudda kadib riwaayadkaasi waxay sheegayaan abibakar markaa wuu celiyey xadiidkan asalkiisa horta muran badan baa ka jira min xayu sanad iyo min xayu almatniba waayo matniga xadiidkaasi waxaa ku soo aroray in abibakar iyo bilaal ay la socdeen laakiin waa war aan jirin sida uu xadiidku u dhigayo matnigaasi sheegaya in abibakar iyo bilaal ay ku jiraan nuqaadul xadiid dhammaantood waa radiyaan ama iyadu waa daciif inta soo hadhay waa haabit bay ku sheegaan si kastaba ahaatee wuxuun buu sheegayaa xadiidkani marka la isku wada daro inuu ninka raahibkaahi ka dhex arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam astaan tilmaamaysa nebinimadiisii uu una sheegay laakiin marka min xayu sancat alxadiid marka lala qabto culimmadu matniga iyo sanadkaba aad bay uga warwaramaan aad baanay wax uga radiyaan inkastoo culimmada baray sugaan kollayba waxaan laakiin ka sugmaynin waxyaaba ay mustashriqiintu isku dayaan inay ka tilmaamaan oo ay yidhaahdaan sidii qur-aankaba ay mushrikiintii carbeed sheegayeen inamaa yucallimuhu bashar ama ay sheegayeen waxa uu cid kalu wax ka soo bartay ayay qaarkood waxay isku dayaan inay yidhahdaan nebi moxamed ba calayhi salaatu wasalaam waxba looma waxyoono ninkani waxoogaagii uu ka soo bartay ayuu dadka u sheegayay laakiin iyana waa hadal tiro aan sal lahayn waayo nin safari 2 saacadood oo uu meel fadhiistay wuxuu nin ka dhageystay oo waliba ilmo yaroo caruuro 10 jir ama 12 jiri qadiyad nebinimo kama waranto marka waa iska war aan runtii radinna u baahnayn shaka kalena u sii baahnayn 2 saacadood ama saacad qada ama raashin la cunayay meel la wada fadhiyay baa wax lagu bartaa waliba aanay jirinna kitaab markaasi tawraad iyo injiishu maanta waa la helayaa tarjumaad carabiya waga tarjuma carabiyana ma jirin oo intaasi dheertay inuu nabi maxamedna waxna qori jirin waxna akhri jirin yani waa waxaan macquul ahayn in warkaasi oo kale la sheego laakiin waxa uu buu tilmaamayaa warka cumuumkiisa marka la isku daro inuu ninkani ka arkayay sifaadkii ama astaamihii nebiga lagu garanayay waxyaabaha taariikhda nebiga calayhi salaatu wasalaam qabla nubuwa ay ka tilmaamaan ragga taariikhda qoray waxaa ka mid ah inay soo wariyaan
inuu nebiga oo yar oo 20 jir meelahaasi inay dhacday dagaalkii la odhan jiray xarbulfijaar oo weliba xarbulfijaar araabica bay yidhahdaan yacni 4 dagaal oo isku magacaabaa jiray bay yidhahdaan 4tan dagaal waxay dhex mareen baa la yidhahdaa nimanka quraysh iyo qabiilkii weynaa ee quraysh ka tirsanayd ee kanaana la odhan jiray oo wada socdo xilfi wadaaga iyo niman la odhan jiray qays oo caylaan labadaa qabiil baa dagaal la dhex mareen bay yidhahdaan dagaaladan xataa culamada taariikh waxay tilmaamaan 3 dagaal hore iska munaawashaat un buu ahaa yani waa la isu googoodiyay ama la isu hanjabay ama la isu yaro hub urursaday laakiin wax naf leh 3 hore ma dhicin baa la yidhaahdaa kan afraad ayaa la yidhaahdaa unbaa dagaal dhacay siday culamada taariikh wariyaan waaqidi iyo ibnu isxaaq oo aan sanad ku soo aroorin baa qisada laga wariyaa waxay yidhaahdaan nin baraas la odhan jiray ayaa wuxuu laayay 3 nin oo qays caylaan ka mid ah yani kan hore waa qabiilka kanaanada la yidhaahdo ee qurayshina ka tirsanayd dabeetana ninkan reer kale uu 3 nin ka dilay warkii baa yimi cukaad waa meel suuq ahayd oo tijaaro wax lagu kala baac mushtarayn jiray baa warkii soo gaadhay warku markaa meesha soo gaadhay ayaa laysu dagaal urursaday quraysh iyo kanaano oo dagaalkooda uu hogaaminaya bay yidhahdaan xarbi ibnu umaya ninkii la odhan jiray oo odaygii u daaweynaa markaasi ahaa iyo qolada kale ayaa dagaal dhex maray dagaalkaasi waxaa la yidhahdaa waxoogaa markii la istirayay markii hore waxay u muuqatay quraysh iyo kanaanaba in laga xoog batay gelinkii hore laakiin duhurayowgii meelahaasay soo rogaal celiyeen waxay u badiyeen markaa iyana markii dambe inay waxoogaa in badan ka laayeen laakiin casarkii gooray ku dhadhowdahay ayaa koox quraysh ka mid ay dhexdhexaadinaya wax isku dayday waxaa lagu heshiiyey markaasi in dagaalka la joojiyo ee meydkana la tiriyo wixii meydka la isdheeraado markaa diyo la kala qaato saas bay wariyaan culamada taariikh waxay riwaayadaasi markaa ibnu isxaaq iyo waaqidi ay ku darayaan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dhalinyaro oo 20 jira joogay laakiin dagaalka muu gelin bay leeyihiin gamuunada ayuu adeeradii u hagaajinayay uu siinayay laakiin wax ka asaxay ma jiro min xaytu sanad iyana marka la eego wax ka asaxay masaladaas inuu nebigu dagaal ka qayb galay hore oo qabaa'ila wax ka asaxay ma jiraan culamada taariikh waxyaabaha dhacdooyinkii hore ay ka waramaan waxaa ka mid ah waxaa lagu tilmaamo xilfi alfuduul ama xilfi ayibiin xilfiga la yidhaahdo waa heshiis dhacay bay yidhahdaan dagaalkaa dabadii heshiiska kani isagu inuu dhacay axaadiis sugaysa ayaa jirta oo weliba nebigu uu ka qayb galay inuu nebigu ka qayb galay way asaxday in sha allahu tacaala waana kuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayey inaanan shahidtu xalfa almutayibiina maca cumuumati waana ghulaam fama axabu ana lii xumra nicami waana ankuhu ama riwaayaadka qaarkoodna ay tilmaamayaan laqad shahidtu fi daari cabdillaahi bni judcaana xilfa ma uxibu ana lii bihi xumra nicam walow idduciya bihi fi lislaam laajabtu walow udciya bihi fi lislaami laajabtu yani waa xadiidkii sheegaya inuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam heshiis baan ka qayb galay adeerada iyo dadka iyaga aan kala qayb galay heshiiskaasi waxaa lagu qabtaa la yidhi gurigii ninkii la odhan jiray cabdillaahi bnu judcaan cabdillaahi bnu judcaan waa nin maalqabeenadii ugu waaweynaa maka ka mid ah waa nimankay odhan jireen koobab dahabay wax ku cabaan ninkaa gurigiisa lagu qabtay laakiin waxaa la yidhahdaa nin wanaag badan buu ahaa marka samaka talinta iyo wanaagga la eego ninkaa gurigiisa heshiiskii lagu qabtaan ka qayb galay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam heshiiskaa inaan ka qayb galayna yani aad buu nebigu ugu faraxsanaa wuxuu leeyay maan weydaarsadeen geela cascas maanta haddii laygu yeedhana heshiiskaa mar labaad waan geli lahaa buu leeyahy heshiiskani waa heshiis ku saabsisan cadaaladana qofka muslimkii mar walba uu taageeraya waxaa la yidhaahdaa asbaabbay keenaan culamaai taariikh ay sheegaan waxay yidhahdaan nin qabiilka zubayd la yidhaahdo ka tirsan ayaa alaab maka keenay dabeetana waxaa ka iibsaday ninkii alcaas ibnu wail oday la odhan jiray sahmi odayadii quraysh ugu madaxadka ka mid ah alcaas ibnu wail baa waa camar ibnu caas abihi caas ibnu wail baa ka iibsaday baa la yidhaahdaa caas ibnu wail markuu ka iibsadayna lacagtiibu hore u siin waayey dabeetana ninkii waar adduunkayga halaysiiyo uu xoogaa sheegay waa loo dhegdhigi waayey ninkani maadaama uu sahmi ahaa qabaa'ilkii ay xilfi wadaagga ahaayeen buu u tegey reer cabdidaar iyo jumax iyo cadiy iyo oo waxaa jirta qurayshi qusayi markuu dhintay ayay isku qabteen rifaadada iyo ciddii qabsan lahayd iyo siqaayadii ama
zamzamkii cidda dadka ka waraabinaysa iyo xujaajta cidda waraabinaysa iyo waxaasaa la isku qabtay marka la isku qabtay ayay quraysh dhexdeedii ilmo qusayibaa xilfi kala samaystoy reer bani cabdidaar iyo kooxda kale ee reer bani cabdimunaaf ayaa isqabtay qabaa'ilkii quraysheeda kalena iyagay xilfi wadaag la wada kala yeesheen laba xilfo iska macruufa buu ahaan jiray markaa jiray kooxdii markaa ninka kan alcaas ibnu waa'il sahmi buu ahaa markaa waa reer bani cabdidaar qoladii xilfi wadaagga la ahay ayuu u tegey waxba waa loo qaban waayey waxay sheegaan markaa wuxuu fuulay baa la yidhaha jabal abu qubays dabeetana gabay uu dulmigiisa ku sheeganayo sida loo dhacay buu tiriyey bay yidhaahdaan gabaygiibaa waxaa maqlay bay yidhahdaan zubayr ibnu cabdilmualib dabeetana wuxuu yidhi war ninkaasi wuxuu sheeganaya wax laga taga maahae hala wada hadlo saasi daraaddeed baa guriga ninkan la isugu yimi baa la yidhi xilfiga sababtiisu kaasay ahayd baa la yidhaha laakiin xilfigu sababtiisu inay ka ahayd waa iska dhacdo taariikhdu ay sheegta uun laakiin intaa saxde aynu haynaa waxa weeyaan in xilfiga kani jiray oo guriga cabdillahi ibnu judcaan uu ku jiray oo xilfiga asalkiisuna wuxuu ahaa waxa wada galay bay yidhahdaan reer banu hashim iyo bani lmualib iyo asad ibnu cabdilcuza iyo bani zahra iyo taym bani mura intaasoo qabiil baa xilfigan wada galay bay yidhahdeen daartii cabdillaahi ibnu judcaan ninka la yidhaahdaana lagu wada galay waxaanu xilfigaasi ku salaysnaa una oo ahaa maka gudaheeda qof lagu dulmiyaa inaanu jirin ilaa iyo inaynu uhiilino mooyaane awel hiilku dee tolun buu ahaa ninkii tollana tolkii unbaa uhiilinayey ninkii tollaana waa la dafirayey laakiin xilfigani wuxuu ku salaysan yahay isagoo cadaalada ah cid kasta oo dulmi magaalada maka waa inaan dulmi ka dhicin cid kasta oo maka joogto oo dulmi laga galo inaynu uhiilino waxaana la yidhahdaa ninkana way uga soo qaadeen adduunkii alcaas ibnu waa'il ninkii la odhan jiray ninkii zubaydiga ahaa zubaydi waa reer yamaneed yani nin ah way uga soo qaadeen xoolihiisii xilfigani kaasuu ahaa waxyaabaha markaa intii taariikhdii nebiga calayhi salaatu wasalaam qabla nubuwa la sheegay uu galay waxaa ka mid ah heshiiskaa raggii galay ayuu ka mid ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yaraantiisii dee adeerkii buu iskala joogay abi aalib nimaan adduun badan inkasta oo odayada quraysh wax la weydiiye uu ka mid ahaa laakiin nin caruur badan oo aan adduun badanna lahayn ayuu ahaa marka waxaa muuqatay xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku caawinayey mararka qaarkood inuu shaqeeyo isagoo inan yara oo uu xoolaha raaci jiray maka gudaheeda waa ka axaadiista saxiixa uu tilmaamayo inuu shacbu maka calaa qaraariid inuu ku raaci jiray adhiga ama xoolaha markii uu nebigu waxoogaa leekaaday ee uu nin dhalinyaro fiican noqdayna baabka tijaaradda ayuu u weecday oo waxaa la tilmaamaa inuu tijaaradda ka qayb galay maalan xataa ay tijaaro wada lahaan jireen ninkii la odhan jiray asaa'ib ibnu abi saa'ib almakhzuumiy oo xadiidka maalan abi daawud uu warinaya iyo ibnu maaje iyo musnadu imaam axmedba ku sugan waa ka tilmaamaya ninkaasi markii uu yimi yowma alfatx maka markii la furtay maalintuu ninkaasi u yimi wuxuu lahaa marxaban biakhi wa shariiki soo dhowow walaalkay iyo ninkii shariiga aan wada ahaan jirnay yani tijaarada wada lahaan jirnay culamada taariikhdu waxay sheegaan markuu dhowr iyo 20 jir marayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu safar kaxeeyey shaam ku socda oo gabadhii khadiijo la odhan jiray ay lahayd waxa laaliya waxa ku saabsan khadiijo iyo guurkeeda riwaayaadka ku saabsan oo dhamina inta ugu badan la iyaguna waa riwaayaadkaasi ahlu siyarku ay wariyaan laakiin culamaa ilxadiis sanad ahaan ma sugaan laakiin cumuuman iyada midi waa dee la hubaa muran kuma jiro nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu khadiijo guursaday khadiijo inay ahayd haweenta u dhashay caruurtiisii oo dhan marka ibraahim laga reebo ibraahim mariya alqibtiya ayaa dhashay laakiin 6dii caruur ee kaleba waxa u dhashay khadiija inay ahayd axabu nisaa ama haweenka kuwa ugu jecel yahay bal nebigu calayhi salaatu wasalaam mar kastoo lasoo hadal qaado wanaagay u samaysay inuu in badan xasuusan jiray xataa caaisha iyadoo ay dhimatay bay ka masayrtay yani khadiijo aan noolayn ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u hadal hayn jiray hadduu wax qalo ama uu xoolo bixinayo khadiijo wuxuu xusi jiray dadkii la asxaabta ahaa haloo geeya waxaas buu odhan jiray waa khadiijo asxaabteedii ama qaraabadeedii ama dadkeedii iyadoo dhimatay khadiijo aad nebigu calayhi salaatu wasalaam uu odhan jiray waxay ii gashay ma abaalgudi karayo ilaa xad caaisha maalintii dambe iyadoo inan yara ay ka hinaastay ay tidhi islaan qowlo lacasun baad hadal haysaa ilaahay inan yarna kuugu bedelay bay ku tidhi dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi alla iguma bedeline waxay ii samaysay cid ii gashay ma jirto yani iyadoo dadoo dhami beeniyey ayay rumaysay
nafya maalba way la qaybsatay markaasuu nebigu wuxuu tirinayay waxyaabahay khadiijo u gashay lixdii caruur ee marka ibraahim laga reebana afarta wiil afarta hablood iyo labadii wiilba yani afartii wiil ahaa qaasim oo caruurta ugu weynaa iyo cabdillaah oo u yaraa labadaa wiil iyo afar hablood oo ah zaynab iyo ruqiya umu kalthum iyo faatima lixdaa caruurana way u dhashay nebiga calayhi salaatu wasalaam intaan risaalada lagu soo dejinna labada wiil iyaga hore ay u dhinteen afarta hablood laakiin afartuba way islaameen islaamkana way soo gaadheen laakiin afartuba marka faatima laga reebo saddex isla nebiga noloshiisii bay dhinteen nebiga calayhi salaatu wasalaam wax caruura uu dhalay oo uu dunida kaga tegay faatimaa jirtay faatimana 6 bilood kadib bay dhimatay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu caruur dhalay oo dhan faadima ugu dambeysay faadimana waxay geeriyootay 6 bilood nebiga calayhi salaatu wasalaam gadaashii waxaan uga jeedaa yani arinta ku saabsan khadiijo iyo guurkeeda waxaan leenahay waa arrin sugan ama tafaasiisha qaabkii uu guursaday iyo qaabkay u xidhiidheen iyo da'diisu intay ahayd iyo iyada da'deedu intay ahayd iyo wax allaale waxa ku soo aroray culamaa ilxadiis ma sugan waxay ku soo aroray laakiin haddaynu iska sheegno lilmacluuma waxay sheegaan nebigu calayhi salaatu wasalaam 25 jir isagoo ah inuu safar kaxeeyey khadiijo ay lahayd dabeetana uu xoolihii ku soo faa'iido uu soo celiyey wiil ay khadiijo lahayd oo xoolaha la kaxeeyey baa uga warramay marka akhlaaq fiicnidiisii iyo dhaqankii nebiga iyo siduu ninkan dhaqanka wanaagsan uu ka arkay dabeetana khadiijo waxay doontay inay ninkan guursato kadibna gabadh bintu wahab ina bintu wahab bay u sheegtay gabadhii baa nabiga la soo hadashay calayhi salaatu wasalaam siday sheegayaan yani riwaayadka taariikhdu kadib buu aqbalay markaas buu guursaday nabigu calayhi salaatu wasalaam waaqidi oo aynu naqaano culamaa ilxadiis yani matruukin agtooda yahay wuxuu ku sheegaa riwaayadiisa khadiijo inay markaa ahayd 40 jir nabiguna uu ahaa calayhi salaatu wasalaam 25 jir ibnu isxaaq isaguna biduuni sanad wuxuu ku soo aroorinayaa riwaayad kale oo aan waxba dhaamin inuu ahaa khadiijo inay ahayd 28 jir nabiguna 25 jir ahaa culamada qaar ka midina waxay ayidaan ra'yiga ibnu isxaaq bay yidhaahdaan baa u dhow waayo 40 jir malaa bay leeyihin way adagtay 6 caruurana inay dhasho yani caadada dumarka waxaa la yaqaanaa dee 45 meelahaba markay marayso inay ilmuhu ka dhamaado fogaato kontonka inaanu la gaadhin marka culamada qaarkood waxay rajaxaan ra'yiga ibnu isxaaq sheegaya bay yidhaahdaan inay dhowr iyo 20 jirka ahayd inay u badan tahay maadaama 6 caruura ay u dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayan kan waxaan leenahay midina taariikhiyan markaynu eegno waa taariikh la soo arooriyo laakiin midina sanad ahaan uma asixin nabigu calayhi salaatu wasalaam yuu kala hadlay waaqidi ra'yigiisa isagu wuxuu leeyahay khadiija aabaheed wuu geeriyooday buu leeyahay xarb ilfijaar horteed baabuu geeriyooday markaa adeerkeed ayaa la weydiistay oo loo khidbeeyey oo markaa guuriyey laakiin imaamu zuhri qowlkiisa iyo ibnu isxaaq isna siduu soo warinayo waxay leeyihiin may odaygu ma geeriyoone waa noolaayo odayga laftiisa ayuu ahaa ka gabadha bixiyey ibnu xajar alcasqalaanina fatxigiisa saas buu ku rajaxayaa in aabaheedu ahaa ninka la weydiistay intaasoo qisaa isku soo duuduub sanad ahaan wax adag oo asaxay oo jira ma jiraan laakiin waxa asaxay sax ahayn waxa weeyaan inuu nabigu guursaday calayhi salaatu wasalaam khadiija iyo inay u dhashay 6 caruura alla ka siiyey subxaana wa tacaala iyo inay naf iyo maalba la soo qaybsatay khadiijo gabadh aada u khayr badan ahayd yani ammaan waxa ugu filan in ilaahay salaan u soo diray yani xadiista saxiixiisay sugayso waa ka nabigu calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil uu yimi ee uu tilmaamayey khadiija in ilaahay uu salaan u soo diray idan khadiija waxa ammaan ugu filan inay tahay saxaabiyadaasi uu alle subxaana wa tacaala salaanta u soo diray marka aynu eegno qabla nubuwa intii nabiga calayhi salaatu wasalaam aan nabinimadu ku soo degin dhacdooyinka la wariyo culamaa taariikh ay sheegaan waxaa ka mid ah kacbada dhisideedii iyo xukunkii uu kala xukumay carabi qadiyadaasi markii ay isku qabatay
waxay sheegaan nabigu calayhi salaatu wasalaam culamaa taariikh say arooriyaan 35 jir meelaha markuu ahaa ayay qurayshi waxay damacday inay kacbada dhisto kacbadu bay yidhaahdaan iyaga hortood markan waxay ahayd radmi ama sukuur waaweyn oo dhagxan waaweyn bay ka samaysnayd oo dushuna qaawantay saqafna aan lahayn kacbada saa u taqaanin kacbadu waa daartan yar ee madow daartan xajarul aswadku waa dhagaxa yar ee koonaa kaga jira meeshu waa daar yar oo qol ah oo albaab laga gala leh xajarul aswadkuna waa rukunka dhagax yar oo kaga sii jira quraysh baa markaa daartan dhistay nabi ibraahim iyo ismaaciil baa markii hore dhisay waqti taariikh hore taasi ahayd laakiin tan dambe waxaa dhisay quraysh waxaa la yidhaahdaa markan quraysh ay meesha soo gaadhay iyagu dhagxan waaweyn bay ka samaysnayd oo dushuna qaawan tahay dabeetana waxay yidhaahdaan waxyaabihii loo hadiyeyn jiray ama la siin jiray baytullahi alxaraamkii lagu guri jiray ayaa tuugu soo dhacday baabay sheegaan culamaa taariikh qaar ka mid oo wax ka qaateen meeshii waxay kaloo sheegaan in dee ay gabowday oo muddo badani ay soo wareegtay oo ay iska dundumaysay oo kale waxay kaloo sheegaan waktigaasi nebiga 5 sano ka hor intaan lasoo bixin oo kale daad weyni inuu maka maray oo derbiyadeedii sii daldalooliyo sii dhaawacay si kastaba ha ahaatee waxaa muuqata inay u baahatay in dib loo dhiso qurayshina waxay qaadatay go-aanka ah inay dib u dhisto culamada taariikhdu waxyaabahay wariyaan waxaa ka mid ay leeyihiin waxay qurayshi ku heshiiyeen bay yidhaahdeen inay dhisaan kow iyo hanti nadiifa uun in lagu dhiso oo waxay yidhaahdeen gabadh xun meher laga qaatay iyo xoolo ribo lagu iibiyey iyo xoolo la kala dhaco dulmiye iyo wixii xun oo dhan bay yidhahdeen waa inaynu ka ilaalinaa xoolo nadiif oo aynu ognay in si xalaalay usoo baxeen oo keliya dee dadkuna weligiiba xumaa iyo samaana waa la kala yaqaanay ta kalena diintii nebi ibraahim ka tegayna waxba kasii harsanaa walidalik waxay yidhaahdeen xoolo nadiifa aan ku dhisno meesha tan laakiin dumistii waa say riwaayaadka taariikhdu sheegaan wax sanad oo saxiixa maan arag waxay kaloo sheegaan dumisteedii iyo kacbada duminteedii baa laga yara baqbaqay dabeetana ninka waliid bin almughira la odhan jiray almakhzumi ayaa ku bilaabay isagu bay yidhahdeen oo maalintii hore intuu soo qaatay madaraqiisa koona ka qoday dabeetna markaasay maalintaa cidi uguma tegin bay yidhahdaan oo maalinimaadii baa la arkay inaanu isna waxba noqonin meeshiina wax ka dumiyo markaasaa la yidhi arrintu waa hagaage si fiican ha loo dumiyo si kastaba ha noqotee ninkaasaa bilaabay bay yidhaahdeen laakiin isaguna markuu u qaatay bay dhahdeen madaraqa wuxuu lahaa allahuma laa nuriidu ila alkhayr ilaa waad ogtay inaanan wanaag waxaan ahayn u duminayn yani inaan dhisayo uun kacbada way ka baqi jireen waana xurmayn jireen way dumiyeen kacbadii markii la dumiyey waxaa lagu heshiiyey in dib loo dhiso dabeetana qabaa'ilkii carbeed ayaa qaybsaday dhagxantii meesha geli lahayd reer hebelow idinku intaa keena reer hebelow intaa keena reer hebelow intaa keena in waliba inteedii bay kuntay waxa ka asaxay meesha tan iyadana haddaan sheegno waa xadiidkii sheegayey inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga iyo cabbaas ay israaceen dabeetana dhagxanta markay soo gurayeen cabbaas uu ku yidhi war dhagaxani wuu ku sarsari doonaaye marada guntiga furo oo saar halkan oo dhagaxa isaga dhig dabeetana uu guntigii furtay nebigu iyo uu halkan saaray kadibna uu dhacay oo miyir beelay kadibna uu soo toosay isagoo le war guntigayga iigu xidha guntiga ii xidha isagoo le guntiga loo xidhay xadiidkaasina wuxuu sheegaya waa marka qura nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qaawisamay yacni waxa uu tilmaamayaa caadaadkii jaahiliyadu ay lahayd inaanu nebigu kala qayb geli jirin calayhi salaatu wasalaam markaasoo qura cabbaas yidhi war marada dhagaxa isaga dhigo xagga sarasa carabtaana gaar ahaan kacbada iyo agaarkeedii meelaha in la isqaawiyo wax sii weynba may hayn waayo qurayshi waa tii samaysatay xeerarka lagu xajo oo ay ka mid tahay dadka dabadda ka yimaada qofku inaanu maradiisa uu sitay ku dawaafi karin allahuma ilaa inuu tuurayo mooyaane haddaad ku dawaafto markaa cid dambe oo xaq u leh inay xidhataa ma jirto waa inaad tuurtaa haddii kale bay idhaahdaan maro reer maka leeyihin waa inaad ku dawaaftaa markaad magaalada timaado reer maka waa inaad weydiisataa nin kamida reer maka inuu ku amaahiyo ama kaa iibiyo maro dabeetana maradaa reer maka ay leeyihin oo qura ayaa lagu dawaafi karaa bay dhahay cidda weydaa maxay samaynaysaa labadii huye uu haystana laxajeclo ka qabo oo aan rabin dee markuu dawaafo inuu iska tuuro kaa waxay idhahdeen isagoo qaawan buu dawaafaya isagoo qaawan bay markaa dawaafi jireen walidalik waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam
xajkii koowaad markii uu abubakar markii cali la soo diray abubakar wixii la soo faray waxa kamid ahaa maxay inaan gaal dambe sanadka dabadii ku soo noqonin xaramka tawaafin iyo qof dambe curyaana qof dambe oo qaawan yani wuxuu ku tusay xadiidku in markii hore qaawanidu iska macruuf ahayd in la iska tawaafo maadaama uu nabigu mamnuucay qof dambe oo qaawani inaanu meesha tan tawaafi karin idan curfigii carbeed ee meesha iska yaalay qaawanidaasi wax weyn maysi ahayn waa ka aad arkayso isagoo dee dhowr iyo soddon jira in la yidhi marada halkan saaro oo iskaga celi laakiin ilaahay subxaana watacaala uu ka celiyey oo uu miyir beelay waxa ay tilmaamaan culamada taariikh soo arooriyaan waxaa ka mid ah markii dhismihii cid waliba inteedii soo dhistay ee meel la soo gaadhsiiyey ayaa waxaa loo baahday in xajarul aswadkii la saaro xajarul aswadkii markii baa qabaa'ilkii isqabteen dabeetana awal dhagxantii hore la qaybsayay kani waa midh qure maxaa laga yeelaya qabaa'ilkii baa isqabtay annagaa saaraynayna waxaa lagu heshiiyey albaab bay yidhahdaan ka mid a albaabada xaramka laga soo galo albaabkaa qofka inoogu horeeye ka soo galaa wuxuu inoogu gar noqo aan aqbal laba yidhaahdeen si baa lagu heshiiyey albaabkii ciddii u horreysay ka soo gasha bay yidhahdaan say culamada taariikh sheegayaan ilaahay wuxuu ka dhigay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo dhalinyaro dhowr iyo soddon jira waxay yidhahdeen waa maxamed alamin raalli baanu ku nahay xukmiga iyo wuxuu inoo kala go-aamiyo sidaa awgeed ayuu wuxuu say sheegayaan culamada taariikh wuxuu yidhi keena go-i baa la keenay dabeetana dhagaxii isagaa qaado go-i buu bartan ka saaray qabaa'ilka oo cid walowba odayadiina soo diraa la yidhi go-a daclada wada qabta go-i baa la wada qaaday meeshii markii la gaadhsiinay isaga ka qaaday oo saaray saasay aqbaleen waxaanay u dareemeen reer waliba de inuu meesha wax ka saaray maadaama odaygoodii go-a dacalka wax ka qabtay oo xagga sare u gaadhsiiyey inaanay hadhow noqonaynin manqaba yani wax laysu sheegto oo qola sharaf dheeraada ay tidhahdo annagaa berigii kacbada saan ka yeelay inaan cidina odhan karin saas baa lagu dhameeyey baa la yidhaahdaa waxay sheegaan culamaai taariikh horta waxaa cad qurayshi kacbadu halkii ay markii hore ka dhisnayd qawaacidu ibraahim way ka soo yaraysa waxay yidhahdaan sababahay uga yareeyeen bay sheegaanoo waxay yidhahdaan maadaama ay ku heshiiyeen xoolo nadiifa mooyaane inaan xoolo kale la gelin xoolii nadiiftee lasoo ururiyaa gaari weyday bay yidhahdeen deetana waxay dhahdeen in xunoo kale iyo inaan ku darine daartunaan soo yarayno seeskii daarta markaa halkii uu marayay laga soo gaabiyey oo meel ka sokaysa la keenay walidalika waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam caaisha isagoo la hadlaya waa kii xadiiskii bukhaari ku tilmaamaya lahaa haddii aanay caaisha ay tolka ahayn qariibu cahdi dad diinta ku cusub oo caynkan aan ka baqayna inay shakiyaan ama dhib kale inay soo gaadho kacbada intaan dumiye buu nebigu yidhi ayaan waxaan dhismaha ka dhigi lahaa maxay qawaacidu ibraahim ayaan dib ugu celin lahaa oo dhismaha waxaan isaga daynayaa sideeda ahaatee dadka kan in waswaasa dhex galo la dhex cararo ayaan isaga daynayaa islaamnimada ku cusub ee islaamnimadooda ha iska haystaan laakiin qawaacidu ibraahim kuma dhisnay dib baan u dhisi lahaa waxaan filayaa cadigii cabdillahi ibnu zubayr baa mar mala dumiyey oo dib u dhisay oo qawaacidu ibraahim ku dhisay laakiin xajaaj iyo habarqabayaashii markii ay dileen kadib bay haddana dib u dumiyeen oo ay xaggii ku soo celiyeen marka weli xaggii yaraabay jirtaa markii dambena culamada muslimiintu waxay arkeen war meeshan haddii marna lasii dumiyo marna lasoo dumiyo dhibteedaa badanaysa inteedaa isaga daaya nebigu intaasu isaga daayo kaga tegayay laakiin cabdillahi ibnu zubayr baa markaa isku dayay inuu qawaacidu ibraahim dib ugu celiyo saa daraaddeed waxaa la yidhahdaa waxay ka soo kaceen in dhulkii dhismo uu ahaa cumuuman inahaasi waxaynu odhan karnaa waa inayogii qabla nubuwa nebiga calayhi salaatu wasalaam intii aanu nebiga noqon siiradiisa caamkee qabla nubuwa markaynu tilmaamnana wuxuu ku caan ahaa in caqli badan oo degan oo aamus badan oo xishood badan oo dadka waxtara oo gacantiisu furan tahay oo aada u caqli badan oo ammaano dhammaanteed lagu yaqaano cid waliba xataa acdaadiisu ay wax ku aaminaan oo run lagu bartay oo aan weligii been lagu arag oo ilaahayna ilaaliyey subxaana wa tacaala ilaahayna ilaaliyey xataa waxyaabaha jaahiliyaadka yaryar ee dadku iska samsameeyaan ilaahay baa ka dhowray subxaana wa tacaala waxaa la yidhaha weligii sanam ma caabudin ma salaamin bale axaadiistii waa kuwii tilmaamayey zayd ibnu xaarita baa iyagoo tawaafayaan markii tawaafka la waday baan sanam soo taabtay buu yidhi markaasuu ii diiday qabla risaala markaasaan haddana baa layidhi ku dayo mid kala soo taabto markaasuu haddana ii diiday yani xataa taabashadooda muu cuni jirin baa la yidhaha wax allaaliya wixii loo qalo cala nusub sanamadoodan iyo aalihadan iyo waxaan ay caabudaan iyo qaraabiintoodan oo dhan muu cuni jirin kuwan isdaqaawiyey iyo waxaan kuma jiri jirin markaa quruu maradiisa degta saaray markiina waa miyir beelay
indhaha wuxuu kala qaaday isagoo izaari leh khisaalka runtii fiican oo dhan markaasi lahaa. intaasi waxaynu iskaga soo koobaynaa wixii ku saabsiisnaa qabla nubuwa. waxaynu u iman doonaa markaasi intii uu nebiga noqday calayhi salaatu wasalaam oo ah inta rasmiga aynu u soconno. inta tan uu nebiga aqwaal mukhtalifa culamada ka soo arorto dhammaantood sanadkoodu iska fiican yahay ama asaxay, laakiin waxaa la rajaxay inuu 13 sannadood uu Maka joogay. 13 sannadood ee uu Maka joogay culamadu lafteeda way sii kala qaybiyaan oo qayb waxay ku tilmaamaan dacwo hoos ahaaneed uu waday iyo qayb uu dacwada kor ugu dhawaaqayay oo uu kor u waday. waxaynu bilaabi doonaa markaasi bal qaybta koowaad iyo markii Alle subxaanahu wa ta'ala uu nabiga ka dhigay ama rasuulka laga soo dhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxa la yiraahdaa da'da nabigu markii ay 40 jir ku dhawaatay ayaa wuxuu jeclaystay in badan in uu iskaga baxo nimankan waxay caabudayaan iyo meelahoodan oo dhan oo khalwa iska sameeyo gaar inuu cidla isaga baxo iska ta'amulo dunida tan iyo saa Allah u abuuray subxaanahu wa ta'ala uu fiirsado iska cibaadaysto waayo dadku diintii Ibraahim xaniifka ahayd wax ka sii hadhaday uun baa jiray marka inuu iska cibaadaysto. waxay waliba gaar ahaan culimada taariikh wariyaan ramadaanada inuu bixi jiray inuu gali jiray godkaasi la oran jiray Gaaru Xiraa waa god weyn oo aad u ballaaran, god yar maaha, waa god aad u afweyn oo weyn. buurtan Jabal Nuur la yiraahdo ku yaala caamadu iminka marka xajka la tagayo meelahaas ay buurta isku dhibaan oo koraan oo godka galaan oo sunna ku soo tukada waxa iska bidca waxba kama jiraan. godkan bari buu nabigu galay uu ka soo baxay khalaas wax dambe oo loo tagtago laga qabtaa ma jiraan. godkaasi buu nabigu tagay calayhi salaatu wasalaam. godku buur dheer buu korka ka yaala muddo koraysa, yacni in nus saac kolleyba ka badan baan rajaynaya saacad ku dhawaad meel haba qaadanaysa qofku inuu lugeeyo. waa buur aad u sarreysa marka la eego inta uu qofku wada yaro aad u luuqal oo laga koro, waa meel aad u cidlo ah. halkaas buu nabigu isaga bixi jiray calayhi salaatu wasalaam oo iskaga cibaadaysan jiray. halkiisii isagoo iska jooga markaasi ayaa waxa u yimi malakul jibriil. nabiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadu intaan jibriil u iman waxay soo martay dhowr kala gadisan. مثلا طلائع النبوة waxyaabo lagu tilmaamaa jiro nabigu uu dareemi jiray. مثلا sida xadiiskii saxiix muslim ka ku sugan nabigu wuxuu leeyahay dhagax baan garanayaa Maka islaami jiray uu dhagax markuu soo maro uu nabiga salaama alayhi salaatu wasalaam waa intaanu nabi noqonin. dhagaxi salaama mucjiza ama waxyaabii Alle subxaanahu wa ta'ala uu nabigiisa ku karaameeyay bay kamid ahayd. waxa kamid ahayd oo waxyigu ugu soo horeeyay nabiga 6 bilood hore wuxuu ahaa riyo uu riyoon jiray. laakiin xadiiskii saxiixa ku sugnaa siduu sheegayo riyadaasi mithla falaq as-subh buu arki jiray. riyada ambiyadu riyadan dadka lama mid aha. dadka caadiga qofka caadiga markuu riyoodo riyadiisu adqaatu ahlaam inay tahay dhadhab shaydaan inay tahay waa suurtagal, yani wax shaydaan u waxyooday inay tahay waa suurtagal suu nabigu ku sheegay. waxa kaloo suurtagal ah inay iska dhadhabtay wixii uu maanta soo ararku inay maskaxdu soo celisay. waxa kaloo suurtagal ah wax waxyiye inay tahay wax khayr qaba oo malag iyo cid u sheegtay inay tahay. laakiin mar kastaba iyadu tafsiir bay u baahan tahay. tafsiirkeeduna mar kasta lama haleelo. in badan waxa laga yaabaa si aad moodayso si aan ahayn inay tahay, yani siday kuugu soo baxday inay wadatay uma badna. ama riyada nebiyadu iyadu waa waxyi, ru'ya al-anbiya waa waxyi. tan adiga riyadaada caadiga waajib ku saaran ma adilada sharcigana ka wada caamadu waxay yiraahdaan shaqeeb al-barriyada shaqeeb al-riyadu isaga ku koobantay hadii loo bishaareeyay hadii wax saxayd yadaan ahaynba wax diinta kamid oo daliil galana maaha ee daliil wuxuu ma diinta sunna iyo kitaab. laakiin riyada anbiyadu way ka gadisantay. riyada anbiyadu iyadu waa waxay rasmiya, walidaalka ba quraanka waxa ku aragtay nabi ibraahim uu ru'ya ku arkay maxay wiilka inuu qalo ismaaciil inuu gowraco dabeetana fuli baa la yiri. iyadu waa waxyi. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyigiisu wuxuu ku bilaabay markaas ru'ya saadiqa. waliba nusuustu siday sheegayso ru'yadaasi 6 bilood buu waxyigu nooca u socday. 6 bilood buu waxyigii nabiga u soo degayay uu ugu imanayay isagoo hurda uun loo waxyoonayay oo loo sheegayay. laakiin waxa loo sheego
sida waagu u bariyo waagu yani markuu bariyo dee qof waliba waa arkaya mila falaqi subxi oo kale ahayd waxa uu saa ugu riyoodaa sidaa cadceed buu soo baxaysa oo kale wax loo hubo oo loo arkaya bay ahayd intaa kadib walidalik ba maalan sheekhana raxiq lmakhtuum kale ayaa wuxuu leeyahay xataa xadiidkii sheegayey juz-un min 46 ka sheegayay wuxuu ku tafsiirayaa nooca kale wuxuu leeyahay maadaama 23 sannadood ahay fitradii nebiga loo waxyoonayay 6 biloodna ay riyadu ahayd waa juz ka mida buu leeyahay min 46 oo 46 ba xaqu ka soo ururiyay oo leeyahay waa waxyigii nebiga oo 46 meelood loo qaybiyo meel ahaan yani 23 sannadood baa nebiga loo waxyoonayay 6 bilood oo ka mid waxay ahayd maxay riyo marka waxa weeyaan marka intii loo waxyoonayo dhan la isku daro 46 meelood meel ahaan ayay ku dhacaysaa kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doortay inuu meeshaasi iska tago godka qaaru xiraa la yidhaahdo godka qaaru xiraa la yidhaahdo ayaa waxyigii ugu horreeyey ku soo degay culimmada taariikhda qortaa waktigaas sida ay u calaamadinayaan maalan sheekhan saaxib araxiiq almakhtuum wuxuu leeyahay waxay ahayd maalin isniineed oo ramadaan ay 21 tahay bisha August 10keedii 610kii miilaadiyada oo da'da nebigu ahayd 40 sano oo qamariya yani tadayaxa laga tiriya 40 sano iyo 6 bilood iyo 12 maalmood buu leeyahay haddii cadceedda laga tiriya la eegana 39 sannadood 3 bilood iyo 20 habeen buu ahaa buu leeyahay isagu saas uu xisaabiyey xisaabtani xagay ka timi kow in waxyigu isniin soo dego waxyiga nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu isniin ku soo degay axaadiis baa cadaysay fiihi wulidtu wa fiihi unzila calay daka yawmu waladtu fiihi wa yawmu yubcath wa yawmu bucithtu yani xadiidkii kale waa kii tilmaamay idan axaadiis baa ku asaxday isniin inuu nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam axaadiis baa ku asaxday waa saxiix la hubo waxyigu inuu isniin ku bilaabmayna axaadiis baa ku asaxday kaasi waa mid qur'aanku wuxuu kaloo sheegay shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan bisha ramadaan buunbuuninteeda waxaa ka mida baa ilaahay leeyahay waa bishii qur'aanku soo degay yani ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisii wuxuu u doortay uu nebi moxamed kula hadlayey ee ummadda loo soo diray inuu soo dego bil ramadaan ramadaan markaa fadaaisheeda waxaa ka mid ah inay tahay bishii samada iyo cirku yani samada iyo dhulku isku xidhmeen ama bishii waxyigu soo degay ayay tahay waa ka kaloo qur-aanka ilaahay ku tilmaamayo qur-aankani inuu soo degay inaa anzalnaahu fii laylatin mubaaraka inaa kunaa mundiriin habeen barakaysan habeenkan barakaysanna waata aayadda kale tilmaamaysa maxay inaa anzalnaahu fii laylati alqadr habeen laylatu lqadri inay tahay maalan sheekhan xisaabtiisan haddaan dib ugu noqonno wuxuu isu geegeeyey kow inay ramadaan noqoto ramadaan wuu gartay mar labaad wuxuu rabaa inuu ramadaan maalintay ka noqonayso culamada taariikh khilaafaad badan bay soo arooriyaan qaar waxay yidhahdaan 17kii bay ahayd qaar waxay yidhahdaan maalintii 7aad bay ahayd qaar waxay yidhaahdaan dhowr iyo 20kii bay ahayd isagu xisaab buu isu geegeeyo wuxuu yidhi kow maadaama uu laylatulqadri soo degay laylatulqadrina axaadiis baa sheegaysa inuu watri yahay habeen kisiya inuu yahay oo aanu tiro dhan inaanay hayne tiro kisiya inay tahay 22 23 25 habeen noocaas oo kale idan qolada sheegaysa buu leeyahay 14 bay ahayd iyo maalmahaas oo dhan ka baxa mar labaad buu ku noqday wuxuu leeyahay sida loo xisaabiyo waxay kaloo tilmaamaysaa buu leeyahay waa inay isniin noqotaa watrigaasi waa inuu isniin ku beegmaa buu leeyahay dabeetana wuxuu eegay 4 isniinood ee ramadaanta ay ku dhacaysay ramadaanta 4 isniinood waxay kaga beegnayd buu yidhi 7 14ka 21ka iyo 18ka idan wuxuu yidhi 18 iyo 14ka tuuriyaga waayo iyagu waxa weeyaan waa tiro dhammaystiran witriga way ka baxsan yihiin wuxuu soo qaatay markaasi waa inay noqotaa maxay 7 ama 21 waxay xadiistu tilmaamaysaa buu leeyahay al-ashr al-akhir in laga daydayo witrka xisaabtiisu intii isu geegay isagu wuxuu leeyahay 21kii ramadaan oo isniina ayuu ahaa buu isagu qabaa habeenkii waxyigu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku soo degay ala kulli xaal intaas waa xisaab la isu geegeeyay laakiin wuxuu baan garanaynaa inuu ahaa habeen laylatul qadri wuxuu baan garanaynaa inay ahayd bil ramadaan waxaan kaloo garanaynaa inay ahayd maxay isniin
intaaba nusuus loo adeegsan karo ayaa jirta. nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu waxyiga kani kusoo degay, caaisha waa tale nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii ugu horreeya kusoo degaa waxay ahaan jirtay bay tidhi riyo, dabeetana waagu markuu beriyo sida waa beriga buu u arki jiray, kadib baa cidlada la jeclaysiiyey, gaaru xiraa ayuu ku taxanusi jiray. taxanusku waa tacabud, ayuu iskaga cibaadaysan jiray. waxoogaa habeenaaba intuu yimaado oo khadiijo u yimaado uu raashin qaato ayuu muddo maqnaan jiray. markuu raashin ka dhammaada buu soo noqdo, haddana in raashinoo kale u qaataa, meeshaasuu saa ugu cibaadaysan jiray. markii dambe ayaa waxa uu yimi malakuljibriil. malakuljibriil baa markaa wuxuu ku yidhi iqra, akhri. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa ana biqaari, mid wax akhriya anigu ma ihi. qaala faakhadanii faqatanii xataa balaga mina aljahd. xadiidku waa kii tilmaamayay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaan idhahdo waxba ma akhriyo, wuu qabanayay jibriil, dabeetana xoog buu u cidhiidhiyey ilaa iyo aan daalo ama ay naftu isugu kay timaada buu leeyahy. markaasuu isii daayey, dabeetana wuxuu yidhi buu yidhi akhri. haddana mar labaad baan idhi buu yidhi ma aqaan sida wax loo akhriyo. haddana wuu ii qabtay buu leeyo xoog buu ii qabtay ilaa iyo sidii oo kale wuu ii cidhiidhiyey, dabeetana wuu isii daayey. markaas buu wuxuu yidhi akhri. waxaan idhi buu yidhi maa ana biqaari. mar saddexaadkii buu ii qabtay buu yidhi oo intuu isii daayey buu yidhi iqra bismi rabbika aladii khalaq, khalaqa alinsaana min calaq, iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam, callama alinsaana maa lam yaclam. aayaadkaasaa soo degay oo waa qur-aanka intii ugu horraysay soo degtay. intaas buu yidhi akhri. kadib wuu ka tegey. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu baqay, xataa baquhu wuxuu ka gaadhay xad axaadiista qaarkood ay tilmaamayaan iftacashat bawaadiruh, yani bawaadirka waxaa la yidhahdaa muruqan yare garabka iyo luqunta isku xidha. kuwani baqa daraaddeed ay gariireen. gurigii baan tegey buu leeyey anigoo khadiijo ku leh zamiluni idada baan idhi buu yidhi. dabeetana waa la daday. markii cabsida ay ka baaday ayaan khadiijo yidhi buu yidhi maxaa dhacay. warkii buu ka sheekeeyey. markaa warkii ayuu ka sheekeeyey. wuxuu yidhi naftaydaa baan u cabsaday. sidii loo galay buu ka sheekeeyey. khadiija gabadh aada u caqli badan bay ahayd. caqli badnideedaasi waxyaabaha tilmaamayana waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ku leedahay ilaahay baan ku dhaartay alle weligii ku hoojin maayo. ilaahay weligii ku hoojin maayo. waayo waxay leedahay dee wahal jazaau lixsaani ila lixsaan. qofku hadduu samaha sameeyo abaalku helaana waa wanaagun. waxay leedahay qof wanaagga sameeya baad ahaan jirtay. innaka latasilu rixm wataxmilu اlkal wataksib اlmacduum wataqri اdayf watuciinu calaa nawaa'ib اlxaq. waxay leedahay adigu waxaad ahayd qofka culus, ama dayn ha ku cuslaado ama dhib ha ku cuslaado, kuwa culus mid wax ka xambaaro oo ka qaada baad ahayd. kaan waxba haysan mid wax siiya baad ahayd. martida ku sooraad ahayd. dhibaatooyinka mid dadka uga gargaara baad ahayd. yani qof wanaaggaasoo dhan samaynaya in dhibi un iskaga timaado macquul maaha bay tilmaamaysaa. laakiin inakeen bay tidhi waxaynu u tegaynaa. waxaa jiray nimay iyada ilmaadeeriyiin oo adeerkee dhalay oo la odhan jiray wariq nofal ibnu asad. khadiija bintu khuwaylad ibnu asad bayan ahayd. yani ilmaadeer bay ahaayeen. ninkan ay ilmaadeerka yihiin nasraaniyaduu qaatay, masiixiyadu kristan buu noqday. marka luqada cibriga buu wax ka yaqaanay. yani cibrigu waa luqadii yuhuudda ee kutubta markaa ku qoraydna waxbuu ka yaqaanay. marka waxay leedahay arrinkani ma aha xume aan wax weydiina ninkan caalimka inakeen. way kaxaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam. ninkaas bay u geysay. ninkan markay u geysay waxay tidhi bal dhegayso in adeerka hadda waxa uu kaaga warramo. bal ii warran buu ku yidhi. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay buu uga sheekeeyey. qisadiisii buu u sheegay sidii wax u arkay, ama riya ha noqoto hadduu ahayd ama intii jibriil uu kala kulmay. yani wixii uu dareemayo wixii u arkay buu u sheegay. markuu u sheegay buu wuxuu ku yidhi markaas wariqa markaa wuu gartay in ninkan loo waxyoonayo. wariqa bnu nofal kow dee maadaama ahlu kitaabha wuxuu hayay bishaaraadkii hore ee in nebi soo baxayo. yani ahlu kitaabka agtooda waxa yaala saa dee ilaahayba qur-aanka ku sugayo waid qaala ciisa bnu maryama ya bani israa'iila inii rasuulu llahi ilaykum musadiqa lima bayna yadaya min atawraa
ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إلهي القرآن كسوغيا إنay hore u hayeen bishaare ciise uu sii sheegay oo sheegaysa inuu nebi moxamed iman doono axmed nebi la yidhahda inuu soo bixi doono towraadda iyo injiishan ay hayaan in badan baa la taxriifiyey laakiin qaar ka mida xataa ilaa hadda magaciisaa lagu hayaa maalan kuwa magaca lagu haya waxaa ka mid a towraada iyagu towraat samira mid la yidhaahdo iyo injiilu barnaba oo kale injiilu barnaba iminka anaajiil afara un bay haystaan kristanku afar injiil yani afar nin waxay qoreen oo ay ku sheegayaan waa ciise wixii aanu kala kulannay marka kan shanaad qarnigii shanaad ee miilaadiga ayay kiniisadu dafirtay oo diiday waayo injiilu barnaba waxa uu diidan yahay caqiidadan ay iminka haystaan ee ah saddexda ilaahay isku ilaaha in ciise ilaaha buu diidan yahay wuxuu rumaysay inuu ciise nebi alle iyo rasuulkiisa ahaa isagaa uga dhow markaa xaqiiqada kuwan ay hayaan laakiin kiniisadu qarnigii shanaad bay kaa mamnuucday oo ay u diiday makhtuudadiisii meel bay iskaga riday beri dhaweyd ayaa laga soo saaray oo nin raahiba baa ka soo saaray fatikaanka weliba yani katoliga meeshooda ayuunbuu ku arkuno ka soo saaro uu islaama lagu tilmaama isna calaa kulli xaal kaa beri dhaweyd baa la soo saaray waxa kaloo kaa taageeray isna oo jira البحر الميت درسيga meesha la yiraahdo urdun iyo agagaarkeeda xafriyaadka dhulkan la qodo laga soo saaro waxyaabihii dadkii hore ay ka tageen aahaartoodii ayaa waxa laga soo saaray aahaar iyaduna injiilu barnaba wuxuu sheegayo kale ay ku qorantay nusuustii aayaadkii uu sheegay injiilu barnaba mid ay ku qorantay oo sheegaya iyaduna annabiy muhammad yani ku dhawaaqaya isxaaxa koob iyo afartanaad wuxuu sheegayaa yani lafdiga laa ilaha illa allah muxammadun rasuulullah baa lafdigaaba sidiisa ugu qoran anaajiishoodan xataa ay haystaan qaar ka mid a maalan ustaad cabdilaxad daawuud alashuri ninkii la odhan jiray waa wadaad kristan oo islaamay sababta ku islaamayna waxa weeyaan wuxuu leeyahay tarjamada lasoo tarjumay afkii cibriga laga soo tarjumaa la qaldaye xataa ilaa haddaa lagu hayaa buu leeyahay injiilu luuqa yani luuqa injiilka la yidhaahdo maalan chapterka 14 aayada 2 waxa ku qoran buu leeyahay alxamdulillahi fil aali wa ala al-ardi islaamu wa lin-nas ahmad tarjamada carabiga waa inkaas buu leeyahay ninkaas waa kitaab buu leeyahay la yiraahdo bible-ka iyo wuxuu maxamed ka sheegay waxa la mid ah anaajiisha xataa imika haystaan rag badan baa tilmaamay inay wax ku jiraan sida uu ahmed diidaat ilaahay u fudaydiyo kitaabkiisan yare uu ku tilmaamayo bible-ka iyo maxamed wuxuu ka yiri على كل حال waxaan leenahay ninka kani taariikh badan buu hayay oo sheegaysa in uu nabi soo bixi doono koow yahuudina waa tii sheegaysaba Madiina reer Madiiniinta badan waxay islaamkoodu u dheereeyay waxa kamid ahaa yahuudi la deganeed oo ansaarta ku sii oran jirtay marka uu idin yimaado marka nabiga cusub soo baxo ayaanu idin jabinaynaa intaan raacno idin ka xog badanayna laakiin markuu nabiga carab noqday bay ka weecdeen qoladii yahuud ahay qoladii carbeedna markay arkeen nabiga cusub bay ilaaliyeen yaan la idin ka dheeraynin waa ka yahuudi idin ku sii hanjabaysay waxyaaba tilmaamaya in yani aahaartan la hayay waxa kamid ah maalan iyadu waxa ma filaya sanad xasan aynu ku soo artay Salman al-Farisi iyo islaamnimadiisi Salman al-Farisi saxaabiga la oran jiray culimada taariikh waxay sheegaan aad weyn buu jiray waxa laga sheegaa 250 sano bay taraajimtu qoraan inay daadiisu dhaafaysay على كل حال سلمان الفارسي تاريخ دي waxay sheegaysaa ilaa 7 raahib inuu soo kala maray kala dambeeyay oo kolba mid uu yimaado oo markuu raahibkaasi dhimanayo yiraahdo ay dardaaran markaasuu yiraahdo cidiin sax ah haysata garan maayo ninka hebel la yiraahdo wadaad hebel meel heblaayad degan un hadaad gaari karto ninkaas baan ku ogay wax sax ah wuu taga kii u dambeeyaan ay buu yiri wari dardaaran wuxuu yiri garan maayo diintii sax ahayd cidan baa ay ku hadhay haatan waqtigii nabi soo baxayay baa joogay nabiga uun hadaad raadcayn karta raadce dhul timir loo caynkaas iyo madiinu tilmaamteedu tilmaam inuu ka soo bixi doono iman doone nabiga uun raadce Salman al-Farisi isagoo nabi raadcaysu soo galay Madiina dabeetana carabtiba intay afduubtay bay iibiyeen oo adoon bay ka dhigeen isagoo diin buu raadcaynay laakiin inta la qabtay ayaa la gaday dabeetana waa la adoonsaday isagoo adoonsigiisa iskaga jira buu nabi maxamed yimi calayhi salaatu wasalaam Madiina dabeetana calaamaadkii loo sheegay wixii oo dhan buu xaqiiqsaday saas buu ku islaamay على كل حال waxaan leenahay aathar badan baa jirta oo sheegaysay nabiga calayhi salaatu wasalaam nabadiisi warqat ibn nawfal markaasi wuxuu fahmay inuu ninka kan yahay nabigii la sugayay waxyigiina uu hadda bilaabmay
markaas buu wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay buu leeyay wariqat ibnu nawfal wuxuu leeyahay waxyiga kan kugu soo degay waa kii ku soo degay oo kale buu leeyahay nebi muuse waa kii ku soo degay ee shallaatadayda ama qoomamadayde bal maan dhallinyaro ahaado wariqat ibnu nawfal markaa wuxuu marayay bay yidhahdeen da aada u gabooba oo xataanu indhaha si fiican wax uga arkaynin idan markanba wuxuu bilaabay inuu isqoomameeyo oo ilaahu yaa nin yar iga dhiga aan kuu gargaaraya buu leeyahy markaasuu wuxuu yidhi bal ma noolaada buu yidhi maalinta tolkaa ku saari doonaan yacni waxaad arkaysaa in sifaadka nubuwada ee uu nebigu leeyahy inuu wariqa hayey oo ay kutubta hayeen ay markaasi ku qoray marka wuxuu u sheegayaa wariqat ibnu nawfal nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam in la bixin doono inuu nebiyey oo waxaan kusoo degay waxyiyey oo carab ay la coloobi doonto oo reer maka ay maagi doonaan oo dabeetana maka laga saari doono oo uu hijroon doonu ka warramaya markaasu wuxuu yidhi ilaahow bal ma noolaado maalinta ay ku saarayaan tolka aan kuu gargaare laakiin nebigu ma ogeyn in tolkii saarayaan xumana iskuma ogeyn inuu nin fiican oo tolkii u wanaagsan yahay ayuu isku yaqaanay dee dadkaad wanaag u samaysaa ku xumaynayana ma aha wax la odoroso oo dadkaad wanaag oo dhan kaa helay inay hadhow xuma kaaga abaalgudayaan ma aha wax la odoroso saa daraaddeed buu nebigu wuxuu ku yidhi wariqa awa mukhrajayahum ma anigay saarayaan buu ku yidhi wariqat ibnu nawfal ba wuxuu leeyahy maalinta lagu saaraya maan joogo waa kuu gargaaraya nebiguna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam awa mukhrijayahum ma aniga lay saari doonaayo tolkayba ay saari doono o eryi doonaa haa buu ku yidhi wariqa waayo wariqa nin waayeela oo yaqaan dacwada iyo islaamku suu u koro buu ahaa wuxuu yidhi waxaan aad la timi cidi lama iman ilaa iyo colaaddiisaa badatay yacni rasuul ma soo bixin ilaa iyo shayaaiinu linsi waljinna way isugu tageenoo colaad baa lagala hor yimi haddaan soo gaadhana buu yidhi maalintaasina ansuruka nasran mu'azara waxaan kuu gargaari doonaa buu yidhi gargaar xooggan laakiin alla ma qadarin ee waraqat ibnu nawfal wuu dhintay nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu dareemay in waxyi uu ku soo degayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dareemay ama wuu degay oo nin caalima ayuu u tegey oo u sheegay waxa kani inuu waxyiyey xumaanaa khadiijina markii hore ay sii dejiso u tilmaamtay dadka wanaagga sameeya wanaaguna inay la kulmaan kadib wakti yar baa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyigu uu ka go-ay waktigaa uu ka go-ay culamada qaar baa sheega 3 sano ahayd qaar baa 2 sano iyo badh laakiin saaxib araxiiq almakhtuum isagu wuxuu leeyahy war ayaamo yar bay ahayd culamo badan baa qabta inay ayaamo ahayd oo ka yarayd waktigaa qolada sanawaadka sheegaya sida ibnu xajar iyo rag la mid a laakiin saaxib araxiiq almakhtuum isagu wuxuu leeyahy war 8 cashaa bay ahayd isagu tiradiisii unbuu dib ugu noqdo wuxuu yidhi waxay ahayd uun 21kiibuu ku soo degay ramadaan intii ka harsanayd unbuu ka maqnaa dabeetana shuwaalkowdeedii buu soo noqday buu leeyahy oo waxyiga dambe uu soo degay yaa ayuha almudathiru ya 10kaa casho ayay ahayd baanuu leeyahay fatrulwaxyigu ama intii waxyigu uu ka maqnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wararka sheegaya yacni bukhaari xadiidkii ku yaalay ee dheeraa baa waxaa ku jira balaaqaat imaamu zuhari uu warinayo wa fiima balaganaa buu leeyahy in nebigu jibriil iyo waxaan intuu ka baqay uu isku dayay inuu iska tuuro buur oo markuu buur sidaa iska tuurba uu jibriil istusayay laakiin culammadu waxay leeyihin waxaas ma asixin bukhaarika ku qoranna wa fiima balaganaa buu leeyahy waa balaaqaat yani waa mursal ma aha xadiid sanadkiisu saxiix yahay oo uu taxan yahay sida xadiidka qaybtiisa hore marka dadka badh baa ku kadsoomo oo is idhaahda xadiidka bukhaari wariyo dabeetana sidaa walidalik baa culamo badani leeyihiin waxba kama jiraan ibnu xajar alcasqalaani baa ka mid a balaaqaadkaasi wuu radinaya calaamat alalbani baa ka mid ah calaa kulli xaal cismada ayaa u diideysaa cismatu nubuwa inuu isku dayo inuu isdilo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan leenahay waxbana isma dilin meel kuma niyoonin inuu iska tuuro waa degay markii ay gabadha iyo khadiije iyo waraqaba isugu tageen nebigu calayhi salaatu wasalaam waa degay waana yaqiinsaday inuu nebi yahay kadibna waxaa bilaabmay waxyigii iyo isdaba socodkiisii wallahu aclam wabilahi towfiq